su-aasha aan rabo sheekh inaan weydiiyo waxa uu dhacaysaa sida tan gabar ayaa nin qabay wuxuuna ku qabay Soomaaliya kadib waxbay isku dhali waayeen waxayna gabadhay ka dalbatay ninka in uu furo muddo badan isagana wuu diiday kadib way ka tahriibtay oo Yurub ayay tagtay nin muslim ah oo aan Soomaali ahayn ayaa fasaqay iyadoo marqaati iyo ninkii qabay toona aysan ogeyn nin kale ayay guursatay oo ay mehersatay iyadoo reerkooda ogeen carruur ayay u dhashay yaa yeelanaya carruurtaasi meherkaasi ma noqonaya misaxa الحمد لله مسألة هوران soo marnay la mid tahay oo masaa'il القضاء way markii qadaha la sameynayana te gabadhii lafteedii in codkeeda la qaado ninkeena inuu dood ka qabo fasaqan iyo in kala la qaado horta qadiyadan xukunkeeda lagu ogaan karaa jaanibka ilmaha yaale ninkan damba iska leh suurada ay u dhacdayna suura uma eka qasad zina suura sharci loo ekeysiyay weeye markay garta la qaadaan la ogaan karaa oo ekeysiintani ma saxan tahay mise way qaldan tahay meherkan dambe ma jira mise ma jiro waxaa la ogaan karaa garta labada dhinac markii la qaadiyo labada taraf iyo ciddii fasaqday waxa ay ku salaysay way ku fasaqday saas darteed hadda fasaqa wuu asaxay ma asaxin midna ma dhihi karo nikaaxa wuu jiraa iyo ma jira midna ma dhihi karo laakiin labada mas'ale muuqata waxaa weeye ilmahan markay ugu yar yihiin nikaax faasida ama shubhay ku dhasheen ilmaha sidaa ku dhashana ninkii ku dhalay baa loogu abtiriyaa ilmaha ninkaas iska leh dacwada laakiin inteeda kale labada daraf in la dhageysto qaadigii fasaqay ama ninkii qaadiga iska noqday ama matalaya fasaqayna sifadiisa sharciga uu ku fasaqay wuxuu ku sareeyay la ogaado markaas wax laga dhigi karaa wabillahi tawfiiq sheekh su'aal kale